السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة يولاشين ليلو كتشين أو إيدين ودا مقال كلا أو عصب أصحابتي إذا قاليقا كسودو هذا channel كيغا ليلو كتشين كيغا مرحور أيان نوسو كلي ومركلة بعد أيان نوسو كلي أصحابتي وقفا إيدي ستو حالكا وحان كو هايستا صدح كوب أو برقة أما دقيقة وحان كو هايستا فانيليا وحان كو هايستا بيكين وحان هايستا سنكور caano 2 midho beeda iyo biyo iyo weelkii intaasan halkaa kusoo diyaarsaday hadda weelka waxaan kusoo iyo wax yar oo milxa weelka waxaan kusoo shubay doonaa in yar oo milxa waxaan kusoo darsaday caanihii sidoo kale waxaan kusoo darsaday sokorta anigu intii aan rabaan ku darsanaya aduguna intii aad rabtad ku darsan kartaa aad ku baasan kartaa waana ku yaraysan kartaa haddaad doontana waabad ka din kartaaba oo waxaad iskaga darsan kartaa malab sidoo kale hadda waxaan kusoo darayaa ukuntii ama beedkii qofba sida uu yaqaano 2 xabadood oo beed ah beedka markaad magaranaysa badanaa hadday istiraado imika weelkaad cuntada ku sameynaysay ku dul jebiyo waxaa laga yaabaa iyadoo xumaatay inay kaa kharibto wixii aad sameynaysay marka weel yaroo kale soo qaado halkaa ku jebi deedna ku shub hadda waxaynu kusoo shubanay xabadii koobaad sidoo kale tii labaad ayaan kusoo shubaynaa tii labaadna waan kusoo diyaarsanaa tii labaadna waan kusoo shubnay sidoo kale saliidii baa inaga maqan saliidina kusoo shubanaynaa saliidana intaad rabto ayaad kusoo shubanaysaa adiga ayay kugu xidhan tahay hadda waxaan kusoo shubanayaa daqiiqda badanaa waxa fiican inaanay ka badnaanin keega markaad sameynayso daqiiqda badani ma fiicna waayo way adkaysaa aad bay u adkaysaa marka haddii aad rabto keeg jilicsan oo aan kaa adkaan inaad samayso waa inaad ku yarayso daqiiqda waad ku badsan kartaa beedka ama ukunta inta doontaad ku darsato 10 mil baad ku darsan kartaa 15 intaa doonto ayaad ku darsan kartaa beedka laakiin daqiiqdu haddii aad daqiiq badan ku darto keegaaga waxaad ogaataa inuu adkaanayo daqiiqda markaasaanay kaaga adkaan waa inaad ka yaraysaa ta kale qasitaanka si fiican iskugu hagaaji aan kusoo darsan doonaa saliidda ama subaga kolba wixii aad ku darsanayso waa inaanad ka yaraynin haddii aad ka yarayso wuxuu noqonayaa wax qarax oo kale ah oo aan hadhitoole markaad cunayso kale aanad aad u cuni karin marka haddaad rabto inaad keegaasi uu noqdo mid jilicsan oo aad cuni karayso oo aan daqiiq badanna lahayn waa inaad saliid fiican oo leegna aad ku dartaa marka saliidana adiga kugu xidhan tahay si fiican adiga ugu darsan karaa hadda saliidina waa inoo soo daray waana isku soo xashay waa inaad si fiican iskugu soo xashtaa sidaa wanaagsan hadda waxaa saa kusoo baxay keegeeni wax yar baan soo dhigay anigaas aan ugu soo saaray waxaan ku daray faniiliyadii iyo bikinkii waxaan ku darnay faniiliyadii iyo bikinkii labadiiba waa inaga kusoo darnay maasha Allah tabaaraka raxmaan si fiican baad isku dhex gelinaysaa waad isku qasaysaa waana soo hagaajinaysaa maasha Allah sidaa fiican quruxda badan leh ayaa kusoo baxday si fiican markaad isku soo dhex geliso aad soo hagaajiso aad si fiican usoo qasto waa inaan burbur ka yeelan haddii kale hadhow burbur buu kusoo baxaya waxaan soo qaadanay weelkeeni aan ku shubi lahayn keega waxaan soo saaray bacdii loogu talagalay in cuntooyinka laga hoos mariyo weelka saliid yar baan soo marsaday haddana waxaan kusoo shubay keegii waxaan soo qasnay si fiican ayaan weelka ugu samaysaa siinu hareeraha kaaga marin oon hareero kaaga gugubanin ama aanu dhinac u weynaan dhinacna u yaraanin okay hadda waxaan soo geliyay ofinta odayga wuxuunta dabkaagu hadduu badayo kale 10 minute 8 minute meelaha ku jirayaa haddiina dabkaagu badnayna ilaa rubuc meelahaas hadda saasay kusoo baxday anu waxaan ku daayay ilaa 10 minute meelahaas ku jiray وأنا قاعدة أسوق صاري ما شاء الله تبارك الرحمن واو
saasuu kusoo baxay keeg jilicsan qurux badan maasha allah tabaaraka raxmaan. waa kaas maasha allah saasuu kusoo baxay keegii. wakaad arkaysaan aad iyo aad buu u jilicsan yahay maasha allah tabaaraka raxmaan. runtii qofkii cuna ayuunbaa ka sheekeyn kari lahaa. aad iyo aad buu u jilcan yahay macaankiisa, yacni marka sokorta ka badin aad iyo aad buu macaananaya.